gurigaas inuu dhismo ayaan ka soo qaaday kaliya ma garan shantaasna fariinta galabta dumarka waan gaarsiiyay oo on your behalf waan ku gaarsiiyay ma ujeedaa hadday doonayaan guryahooda inay xafitaan inay raggu arrimahaas ay jecel yihiin ay ilaaliyaan midda koowaad waa gabadha diinteeda labaadna waa gabar mutiicada inay tahay oo muwaafaqa leh oo ninkeeda ka dambaysa oo aan isku taagin oo aan ka hormarin oo aan mucaaradin yani wixii diinta baan ka hadlayna laakiin waa inay waafaqdo ninkeeda oo daaca leedahay waxaan kale oo sheegnay inay sabr looga baahay oo ay ku sabirto ninkeeda waxyaalo badan baa laga yaabaa inuu gaabis ku noqdo xuquuqdii baa laga yaabaa qaar inuu ka gaabiyo dhibaatooyin khilaafiya laga yaabaa inay yimaadaan gabadha waxaa looga baahan sabir ninka markaa haweentaas sabir kale ninku waa jecel yahay mana ilaawo arrinka afraad oo raggu dumarku jecel yihiin waxaan u sheegay gabdhaha inay tahay daryeelka inay ninkeeda daryeesho cuntadiisa hooygiisa jiifkiisa alaabtiisa sariirtiisa danihiisa umuurihiisa khaaska ah si special VIP ah isaga inay u maamusho caruurta iyo reerka iyo xil qaraabada iyo dadka kale aanay la wadaagin waa inuu leeyahay daryeel khaas ah oo VIP ah oo xaaskiisu isaga ay ku maamusho kaliya ma ujeed arrinka u dambeeya dareenka inay maaragtay dareensan tahay hadalkeeda ilaaliso dhaqankeeda ilaaliso qaraabadiisa qaabkay ula dhaqmayso ilaaliso isaga qaabkay ula dhaqmayso iyo maaragtay dhaqan wanaagga dumarka hoose oo guriga iyo sariirta iyo dhaqanka hoose ay aad maaragtay wixii dareenka ku saabsan oo dhan feelingkiisa ay ilaaliso shanta qodob waxaan gabdhayo hadii la idinka helo nin idin ilaawi kara ma jiro hawa yaraan ama idinka go'ay kara ama idinka samri kara hadduu shanta qodob gabadha ka